maayirka waanu ka gudoonnay waxa alaabta uu soo gaarsiiyay way soo gaadhay dhammaan maayirka iyaguna waa mahadsan yahay فلا فالحمد وانا ندعينا ماير ساسا لغا باهن yahay waxa weeyaan wixii lagu soo doortay wataayatu lamida maayir inay dawladii hoose wax keentay way ku mahadsan yihiin waa madax noo dhiga nuglaatay markii aanu la hadalnay hadalkayagii aanu shalay jeedinay si wanaagsan bay uga soo jawaabtay waxay u keentay dadkii biyuhu ay galeen xoogaa dhig joojin oo raashina bay u keentay wanaagsan aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay dawladdeega nugul baad noqoteen halkan waa xaafad ka tirsan xaafadan Faarax Omar qaybta wadada hawdka shalay taqayla ka baxday daadka galay guriyo qoysas buu waxyeeleeyay intii qoysaskii uu waxyeelay daadkii waxa weey guriyahooda u galay waxay dawladda hoose noogu soo dhiibtay oo aan u keennay waxa weeye raashina xabad furaasha xabad caawa waanaga gudoonsiinayna waanu mahad celinaynaa maamulka dawladda hoose dadkoodii oo caawday oo u laga nuglaadeen ay u soo gurmadeen weeye dadkuna waxa weeye waa dawladdoodii iyagana dawladda mas'uuliyiina inay caawdaan xaq bay u leeyihiin inay la shaqeeyaan xaq baa loogu leeyahay arrintu waa inta aad iyo aad ma u soo dhaweynaa alaabta waanu ka gudoonnay ay sidaan gudida dawladda hoose waanu ku mahadsan yihiin waanu ka haynaa gudoomiyaha degmada haddii alla ka dhigayo dhammaantoodba iyo shaqaalaha dawladda hoose iyo gudida xaafadda dhammaantood waa mahadsan yihiin waxa weeye haddaannu idin canaanannay horta raalli baad ka ahaanaysaan laakiin dawladdeega nugul baad noqotay gaar ahaan maayar ku-xigeenkoo markiiba noo yimi iyo guddidiisa iyo maayarka aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin dawladdii hoose hadalkayagii aanu shalay jeedinay si wanaagsan bay uga soo jawaabtay waxay u keentay dadkii biyuhu ay galeen xoogaa dhig joojin oo raashina bay u keentay wanaagsan aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay biyana insha Allah galabtay noo imanayaan oo waxbay nagala qabanayaan assalaamu calaykum waxaan joognaa xaafadda wadada hawdka qaybteeda bayl geerashka bayl ka dambaysa qoys dan yar oo halkaas ay ugu galeen daadadkii habeenkii roobkii dhaweyd uu helay wixii ay haysteen hu iyo magaranaysaa ahaa googleba iyo agab iyo cunno daadkaasi uu ka qaaday waxyeeleeyay qoyskaasoo cabashadoodu markii ay soo gaadhay annaguna aan u gudbinay anigoo ah gudoomiyaha degmada Faarax Omar aan u gudbiyay madaxda degmada maayirka iyo ku-xigeenkiisa iyaguna si fiican uga soo jawaabeen qoyskaana ay u soo gurmadeen intaa waxaa noo dheer in aan qorshe cad ka leenahay haddaan dawladda hoose nahay in aanu bal biyahan meesha ku soo jabaya aanu samayno inaanu bal ka basrino oo aan meel uga duno ama aanu samayno meelo ay raacaan iyo laago aad baan uga mahad celinaynaa maayirka iyo maayir ku-xigeenka sida dhagaha fudud ay uga soo jawaabeen baaqi aan ugu dhiibnay dadka ku dayacan ama ku waxyeeloobay daadadkii habeenkii dhaweyd maanta waxaanu sidaynu wada ognahay waxaa curtay gugii maalmihii ugu dambeeyeyna waxaa ilaahay subxaanahu watacaala inoo shubay roobab alxamdulilah weeyaan in badan baan dee roob la'aan ka cabanaynay alxamdulilah ilaahay roobka inoo shubay haynoo sii siyaadiyo oo mid bilaa dhibaataana alla haynooga yeelo intaa kadib maanta waxaanu kormeero shalay la sameeyey iyo qiimeyne la sameeyey ayaa waxaa lagu soo ogaaday dad badan iyo qoysas badan oo waxyeeleeyey roobkaasi biyihii ay u galeen iyo kuwo kaloo dan yaro oo saameyn badan uu ku yeeshay waxaan jecelahay inaan halkan laba baaq aan ka diro marka laga yimaado dee wixii dawladda hoose ay ka jawaabayso laakiin shaqada dawladda hoose qabanaysaana aanay yarayn runtii biyaha socodsiintooda iyo maxaa la yidhaahdaa waxtarka danyarta waa ay ka shaqaynayso haddana laba baaq baan doonaynaa shacabka u diro labadaa baaq waxay yihiin ka koobaad magaalada Burco waa la isku dhex jiraa reer walowba bal reerka idiin dhimaamo reeraha idinku xiga ogaada
magaalada waxaynu ogaanay assessment-ka intaan sameynay inay jiraan dad fara badan oo qoysas fara badan oo aad u danyara oo buka qaarkood oo aan ehelo badan lahayn oo aad u danyara waxna aan haysanin ayaan meelo fara badan ku aragnay marka bal dadku inay iska warhayaan oo jaararku reeraha u dhow inay wax cuneen maanta iyo inay saddexdii waqti helayaan ay ka warhayaan oo dadku ay wax istaraan baaqa bulshada u diraya baaqa labaadna waxa weeyaan biyahani wadooyin bay maraan dhinac bay u socdaan wadooyin bay mari jireen awalba biyaha yeenaan isku xidhin biyaha inta ugu badan ee dhibaatada inoo geysatay dadku iyaga isku xidhay qof waliba guri buu dhistay hortiisa buu wax dhigay dhagax buu dhigay moos buu dhigay dabadeedna biyihii meeshii ay mari lahaayeen baa xidhantay taasna waa keenaysa inay waxyeelooyin keenaan biyaha marnimadooda hala baneeyo fadlan yaan la moosin guryaha hortooda dhagaxan iyo waxaan la dhigayo halaga daayo marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa guddidan la soo gaadhsiisay raashinka iyo gogasha talabaad daadadku waxay lahayd wadooyinku way xidhan yihiin ilaa masaajidka dhexdooda ayay wadooyinku lahayd waxa xidhan garawaaga marka waxaanu doonaynaa in hawshaa wax laga qabto alxamdulilah ilaahay baa mahadle jalla wacalaa mahadoo dhan ilaahay bay u sugnaatay waxaa halkan nala jooga guddoomiyihii degmada Faarax Omar iyo agaasimihii arrimaha bulshada ee dawladda hoose agaasime Cabdiwahaab waanu mahad celinaynaa halkan waxaanu imka dhex taaganahay qoys danyara oo daadadkii habeen hore nimcadii ilaahay inoo keenay roobka ahayd ay ku fatahday oo guryahoodii iyo agabkoodii iyo wixiiba ay galeen oo qaateen baaqaa shalay baanu u dirnay dawladda hoose iyo guddoomiyaha xaafadda iyo maayirka iyo maayir ku-xigeenka aanu gaarsiinay markiiba way ka soo jawaabeen wixii dhiig joojinta ahaa ee qowtal daruuriga ahaa iyo gogashii iyo cuntadii way la soo gaadheen aad iyo aad baanu guddoomiyaha xaafadda iyo maayirka iyo maayir ku-xigeenka aanu ugaga mahad celinaynaa sidaa degdeg ah ee fariintii aanu shalay gaarsiinay ay uga soo jawaabeen fariinta kale aan bulshada u diraynaana waxa weeye ugu horreyn horta inay cashuuraha iska bixiyaan waxa wax lagu qabanayo wax laynagaga moosayo gargaarka degdega laynoogu qabanayo ee wadooyinka lagu banaynaya waa cashuurta yar laynaga qaadayo cashuurta hala bixiyo oo ha lagu dadaalo qof kastoo inaga mid yahay inuu cashuurta bixiyo oo ku nool degmada Burco taa bulshadaan u dirayaa talabaad meelaha biyo mareenka ee daaradaha laga sameysanayo ha laga digtoonaado iyo meelaha khatarta keeni kara xilli roobaad baynu ku jirnaa naxariistii ilaahay baa cursan oo daaysa meelahaana ha laga digtoonaado barakallahu fiikum raashinkan aad arkaysaan dawladda hoose ayaa soo bixisay halkan waxa jooga laba reer oo isa saaran caruur yaryar oo rajiya agoona annaguna jaarkooda aanu nahay u dhownahay marka dawladda hoose aan ugu wargeynay ugu qaylinay intaan raashinka abay soo bixiyeen oo soo dhiibeen dee islaamka iyo muslimka islaamka waxaan ka codsanaynaa wixii wax taraya wixii ilaahay hortii wax u geysanaya waxbarashay u baahan yihiin leyd bay u baahan yihiin guri sadaqada yar ay ku jiraan waa kiray u baahan yihiin waa caruurtaa yaryar aa arkaysaan sabiga waxa weeye 8 ninkan imanka haya caruurta uu dhalay iyo 5 caruurahoo rajiya agoona wixii wax ku taraya ilaahay dartii inay wax ku soo taraan ayaanu doonaynaa codsanaynaa lambarada lagala soo xidhiidhaya waxa weeye waa 6321313 lambarka kalena waxa weeye 2493 412